mas'uuliyiinta iyo xubnaha ururka ONLF ku sugan dalka iyo dibadiisa ay u doorteen inuu noqdo gudoomiyaha ku meel gaarka ah ee jamhadda wadaniga xoreynta ogaadeen iyo ONLF iyo ku xigeenkiisa Axmed Yaasiin Sheekh Ibraahin ayaa maanta kulan ducay soo dhaweynay markii u horeysay la yeeshay mas'uuliyiinta iyo xubnaha ururka ONLF ku sugan magaalada Jigjiga ayaa waxaa shirkani ka soo qayb galay qaar ka mid ah taageerayaasha ONLF xubnaha ururka hooyooyinka iyo kooxaha fanka ee Jowxo gudoomiyaha cusub ururka ONLF Riyaale Xaamid iyo ku xigeenkiisa Axmed Yaasiin Sheekh Ibraahin ayaa madasha ka soo jeediyay khudbado dhinacyo badan taabanayo inta badan ay kaga hadlayeen halgankii Jowxo iyo barnaamijkooda siyaasadeed oo ka mid yahay khilaafka soo kala dhaxgalay madaxda ONLF waxaan shacabka ugu baaqayaa nabad waxaan ugu baaqayaa midnimo waxaan ugu baaqayaa horumar waxaan ugu baaqayaa wada noolaansho dawlad deegaanka Soomaalida madaxweyne Mustafa Maxamed Umar waxa leeyahay ballanteeda dhismo ku qaaday in aadan kursigaaga u siisanaynin ka dabee annaguna garabkaadan joognaa wixii Soomaalinimo ah wixii dadka yara shacabka maslaxad ah waan kula shaqaynaynaa welibana hortaabaan dhibanaynaa hortay ma dhibanaysid maadaama aad wax u shaqaynaysa ay tahay qadiyadda shacabka Soomaalida ogaadeenay ama shacabka DDS kolbasir loo yaqaan taas waa ballan dawladda federaalka Itoobiya waan uga mahadcelinaynaa heshiiskii iyo sida ay noo soo dhaweysay iyo fursadaha ay na siisay weli nabad dibaana si walba noo kilkilisaan doorka ma socono halka ma ka dhalinaynaa marka dibadda ma galayno waxaa laga yaabaa muddooyinkii u dambeeyay oo dhan in ururka la dhaliilay oo lagu dhaliilayay qorshayaashii uu ku dhawaaqay inuu fulinayo inuusan waxba ka fulinin inta badan qaybo la fuliyo waa jiraan laakiin inta badan inuusan waxba ka fulinin waa sax waa run way jirtaa dhaliisha noocaas way jirtaa waxaana sabab u ah waxaa weeye qorshayaasha iyo boorasiga iyo maaragtay barnaamijyada urur kastaba ama dawladda noqoto urur ha noqotee uu fulinayo waxaa tuuliska koobaad ee loo isticmaalo waxaa weeyaan hogaaminta haddii hogaamintii hagi lahayd ee shaqooyinka dadka u qaybin lahayd ee barnaamijyadaas fulintooda dabageli lahayd ee wixii tashiilaad loo baahan yahay isku dubaridi lahayd haddii la waayo qorshayaal qoran waxay ma tarayaan khilaafka laydin sheegayana intaan ka bilowdo wax kale kuma bilaabo wuxuu ka bilowday ahdaaf iyo mabaadii iyo aragti aan ku midownay baa jira oo aan fulintooda aynu ka wada midaysano oo wada qalab qaadanay haddii ahdaaftii iyada ahayd la dabamariyeeyo waxaa weeye macnihiisu wada socodku waa adkaanaya haddii qorshayaashii la isku ogaa la garab maro wada socodku waa adkaanaya haddii xeerkii ururka iyo nidaamkii ururka la garab maro wada socodku waa adkaanaya haddii ciddii cadow ahaydna soke macna laga dhiganaya saaxiib ciddii ehelka u ahayd halgankana la fogeynayo wada socodku waa adkaanaya waana midda dhacday weeye midda dhacday weeye in ururkan dadkii u soo baaba'ay ee ehelka u ahaa in hangoor dheer la iskaga hayo dadkii shalay la dagaalamayeyna ay uga hoos mareen kuwii naftohorayaasha ahay kuwii magalaysa xubnaha ahay taasina dhow maaha mid la qaadan karana maaha taasaa keentay marka khilaafka ururka ragaadiyey taasaa keentay golaha dhexe intuu fadhiisto in uu kalsoonidii kala noqdo oo xilkii gudoomiyeyna ka qaado gudoomiyihii hore Cabdiraxmaan Sheekh Mahdi kulankan ayaa imaanaya maalin kadib markay koox taabacsan gudoomiyaha garabka kale ee Cabdiraxmaan Mahdi ay bayaan ay soo saareen ee ururka ONLF kaga saareen mas'uuliyiin ururka miisaaniya magac ku lahaa khilaafka ka dhaxaloosan ururka ONLF oo ahaa mid muddo soo jiitamay tan iyo intii ay nabadda qaateen ayaa soo ifbaxay wixii ka dambeeyay shirweynahoodii ka qabsoomay magaalada Goday mas'uuliyiinta iyo xubnaha ururka ONLF ku sugan dalka iyo dibadiisa ay u doorteen inuu noqdo gudoomiyaha ku meel gaarka ah ee jamhadda wadaniga xoreynta ogaadeen iyo ONLF iyo ku xigeenkiisa Axmed Yaasiin Sheekh Ibraahin ayaa maanta kulan ducay soo dhaweynay markii u horeysay la yeeshay mas'uuliyiinta iyo xubnaha ururka ONLF ku sugan magaalada Jigjiga ayaa waxaa shirkani ka soo qayb galay qaar ka mid ah taageerayaasha ONLF xubnaha ururka hooyooyinka iyo kooxaha fanka ee Jowxo
gudoomiyaha cusub ee ururka Onalif Riyaale Xaamid iyo ku-xigeenkiisa Axmed Yaasiin Sheekh Ibraahin ayaa madasha ka soo jeediyay khudbado dhinacyo badan taabanaya oo inta badan ay kaga hadlayeen halgankii Jowxa iyo barnaamijkooda siyaasadeed oo kamid yahay khilaafka soo kala dhaxgalay madaxda Onalif. waxaan shacabka ugu baaqayaa nabad, waxaan ugu baaqayaa midnimo, waxaan ugu baaqayaa horumar, waxaan ugu baaqayaa wada noolaansho. dowlad deegaanka Soomaalida madaxweyne Mustafa Maxamed Umar waxaa leeyahay ballanteeda dhismo ku qaaday in aadan kursigaaga u siisanaynin ka dabee annaguna garabkaadaan joognaa. wixii Soomaalinimo ah, wixii dadka yara shacabka maslaxad u ah waan kula shaqaynaynaa. welibana hortaamaan dhibanaynaa, hortaya ma dhibanaysid, maadaama aad waxay u shaqaynaysa ay tahay qadiyadda shacabka Soomaalida ogaadeynaya ama shacabka DDS kolba sida loo yaqaano. taas waa ballan. dowladda federaalka Itoobiya waan uga mahad celinaynaa heshiiskii iyo sida ay noo soo dhaweysay iyo fursadaha ayna siisay. weli nabadii baana si walba noo kilkilisaan doordama uma soconno, halkan baan ka dhalinaynaa. mar dambe dibad ma galayno. waxaa laga yaabaa muddooyinkii u dambeeyey oo dhan in ururka la dhaliilayay oo lagu dhaliilayay qorshayaashii uu ku dhawaaqay inuu fulinayo inuusan waxba ka fulinin inta badan. qaybo la fuliyo waa jiraan, laakiin inta badan inuusan waxba ka fulinin. waa sax, waa run, way jirtaa dhaliisha noocaas way jirtaa. waxaana sabab u ah waxaa weeye qorshayaasha iyo boorasiga iyo maaragtay barnaamijyada uu urur kastaba ama dowladda noqota urur ha noqotee uu fulinayo. waxaa tuuliska koobaad ee loo isticmaalo waxaa weeyaan hogaaminta. haddii hogaamintii hagi lahayd ee shaqooyinka dadka u qaybin lahayd ee barnaamijyadaas fulintooda dabageli lahayd ee wixii tashiilaadee loo baahan yahay isku dubarridi lahayd haddii la waayo qorshayaal qoran waxba ma tarayaan. khilaafka laidiin sheegayana intaanu ka bilowday, wax kale kumuuna bilaabo. wuxuu ka bilowday ahdaaf iyo mabaadii iyo aragti aan ku midownay baa jira oo aan fulintooda aynu ka wada midaysanna aynu wada qalab qaadanay. haddii ahdaaftii iyada ahayd la dabamaryeeyo waxaa weeye dee macnihiisu wada socodku waa adkaanaya. haddii qorshayaashii la isku ogaa la garab maro wada socodku waa adkaanaya. haddii xeerkii ururka iyo nidaamkii ururka la garab maro wada socodku waa adkaanaya. haddii ciddii cadow ahaydna soke laga dhiganaya saaxiib, ciddii ehelka u ahayd halgankana la fogeynayo wada socodku waa adkaanaya. waana midda dhacday weeye. midda dhacday weeye in ururkan dadkii u soo baaba'ay ee ehelka u ahaa in hangoor dheer la iskaga hayo. dadkii shalay la dagaalamayeyna ay uga hoos mareen kuwii naftourayaasha ahay kuwii magalaysa xubnaha ahaayeen. taasina dhow maaha, mid la qaadan karana maaha. taasaa keentay marka khilaafka ururka ragaadiyey. taasaa keentay golaha dhexe intuu fadhiisto in uu kalsoonidii kala noqdo oo xilkii guddoomiyeyna ka qaado guddoomiyihii hore Cabdiraxmaan Sheekh Mahdi. kulankan ayaa imaanaya maalin kadib markay koox taabacsan gudoomiyaha garabka kale ee Cabdiraxmaan Maadi ay bayaan ay soo saareen ee ururka Onalif kaga saareen mas'uuliyiin ururka Miisaan iyo magac ku lahaa khilaafka ka dhaxaloosan ururka Onalif oo ahaa mid muddo soo jiitamay tan iyo intii ay nabadda qaateen ayaa soo ifbaxay wixii ka dambeeyay shirweynahoodii ka qabsoomay magaalada Goday.